Xuutiyiinta Yemen ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay safaaradda oo Somaliland ay ku sheegtay inay ka dhisan doonto Israel, gaar ahaan magaaladii barakeysaneed ee Qudus ee Falastiin. Israel ayaa sheegtay in Somaliland ay aqoonsan tahay ayna dhexmari doono xiriir laba dowladood oo dhexmari doono, iyadoo Somaliland halka ay u magacaawday safiir u fadhin doono magaalada barakeysaneed ee Qudus, taas oo ka dhigan tahay in Somaliland ay Qudus ay u aqoonsan tahay inay leedahay Israa'iil. Xaaladus ayay faraha ka sii baxday kadib markii dhinaca kale ay sheegeen Xuutiyiinta Yemen inay qaadi doonaan tallaabooyin military, iyagoo Xuutiyiintu ay sheegeen in arrinkaa aysan ahayn wax laga aamusi karo loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin cadcad. Dhulka Soomaaliyeed dadka loo yaqaanana ay xadkooda soo gudbeen, waa sida ay sheegeen Xuutiyiinta Yemen. Golaha siyaasadda ee Xuutiyiinta Yemen, gaar ahaan guddoomiyaha, ayaa ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah oo ka dhana Somaliland, isagoona sheegay in dhiro tiro dhowr jeer oo hore ay ula hadleen oo ayna uga digeen arrinka imika ee faragelinta ay ka wadaan ee dhulka Falastiiniyiinta. Intaas boqolaal kumood ay u dhinteen, waxayna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad hadday danta kaliftana ay qaadi doonaan tallaabooyin military ee Xuutiyiinta Yemen. Arrinka ayaa ku soo aadaysa oo dabaaldegada 35aad ee midnimada ee Yemen ay u dabaaldegayeen Xuutiyiinta ayay ku soo hadal qaadeen Somaliland, iyagoona ay sheegeen in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo dadka siyaasiyiinta haddii ay ka tanaasuli waayaan taageerada Yahuudda iyo dadka shacabka reer Somaliland inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad kuwaas oo ugu argudayaan ee Falastiiniyiintu ayna ka hortagayaan. Waxayna sheegeen in tallaabadan ay khatar ay ku tahay midnimada ee Yemen iyo guud ahaan Islaamka, iyagoona sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in Somaliland ay safiir u magacaawdo Israel, iyadoo ay tahay maamul goboleed kale oo lagu muransan yahay oo dhulka daanta galbeed ee Falastiin dhammaanteedba goobta ay haysataba Israel ay iyada u taqiino, laakiin ay sheegeen inay tahay dhul muslimiinta oo ay leeyihiin. Waxayna sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cad oo ugu argudaya arrinkaa, taana aysan ahayn wax looga aamusi karo. Waxay kaloo fariimo adag ay u dirtay Israa'iil iyo Maraykanka oo ay ku sheegtay inay la diriri doonto haddii ay isku dayaan inay tallaabo u soo qaadaan ee dhulka Yemen. Waxay kaloo ay sheegeen inay bilaabi doonaan xoreynta guud ahaan Yemen sidii gacanta ay ugu dhigi lahaayeen Xuutiyiinta Yemen oo fadhigeedu yahay Cadan. Waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad iyaguna ay ku argudayaan ee muslimiinta. Dhinaca kalena waxay fariimo kulul ay u direen isla dalalkan Iiraan, isla dalalkan ee Maraykanka iyo Israel, iyagoona ay u sheegay inay difaaci doonaan saddex dal oo difaacidooda ay tahay muqadas, ayna la diriri doonaan Maraykanka iyo Israel iyo cid kasta soo raacdo ay Somaliland ay ka mid tahay. Waxay sheegeen in dalalka Liibiya, Falastiin iyo Iiraan ay tahay lama taabtaan, iyaguna ay u heelan doonaan oo ay garab ay siin doonaan haddii la isku dayo in halkaa la weeraro ama tallaabo laga qaado. Dhinaca kalena waxay sheegeen in Xuutiyiinta Yemen militarigooda ay galeen heegan buuxa, taa oo diraysa fariin aad u kulul oo ah in Yemen ay saacad kasta Xuutiyiinteeda ay diyaar u yihiin inay dagaal ay la galaan oo ay la diriraan cadowgooda oo ay ula jeedaan Maraykanka, Israel iyo cid kasta oo soo raacda.